toos wararka wacalaha dhinaca diblomaasiyadda hawshan qiimaha badan ayaan ku bilaabo qaybtan wararka ugu dambeeyay dunida wacalaha dhinaca diblomaasiyadda iyo hadallo la yaab leh ee ma ogtahay in ay jiro urur aad u ballaaran oo madaxweynaha dalka Russia Vladimir Putin uu khudbad ka jeediyay kaasoo si la yaab leh u soo jiitay caalamka islaamka ahna taariikh la yaab leh oo ka sheekeeyay una sheegay in Ruushku uu yahay wadanka kaliya ee wuxuu yiri Kristaana isla markaana waliba tadhakisa ee haddana aan diidanayn ayuu yiri in muslimiintu ay la noolaadaan si cunsuriyad la'aan khudbadda soo jiidashada leh ee Kazan Forum uu ka jeediyay madaxweynaha dalka Russia Vladimir Putin ayuu ugu daraaday wadamada reer galbeedka oo uu sheegay ayagu in ay isku tilmaamaan in ay yihiin wadamo danida oo dhan lagu noolaa oo ilbaxnimo gaaray oo fariidnimo leh oo sidoo kale dadnimo iyo gobonimo ay ka jirto dalalkooda laakiinse ay saas xaqiiq ahayn isagoo ka hadlayay Kazan Forum ayaa waxa uu sheegay in ururkan oo loo yaqaan the Russia Islamic World Kazan Forum ba loo yaqaan uu yahay ama ururka International Economic Forum oo ah urur ay wadamada caalamka islaami iyo dalka Ruushku ay gabi ahaanba ay aragtidaas ku dhaafsadaan wadamo 100 ah oo u badan wadamada caalamka islaamka ayaana halkaasi markaas isugu yimid iyadoo uu ku tilmaamay in uu tan tahay mid aad u xogan khudbadda uu Trump Putin jeediyay waxay ahayd mid xasaasi ah dad badan soo jeedatay waayo wuxuu ka hadlay cilaaqaadka ka dhaxeeya ayuu yiri markaasi ama u dhaxeeya labadan wadan ee kala ah ama labadan wadan ee kala wuxuu yiri andho wadanka Ruushka iyo wadamada caalamka islaamka oo uu sheegay in ay tahay kii ugu ballaadhnaa ee taariikhda Putin wuxuu ku tilmaamay wadamada reer galbeedka in aysan soo gaari karin ilbaxnimada yiri gaamurtay ee wadankiisa annaga ilbaxnimadeena waxay ku guunowday ayuu leeyahay sidan ay ugu ballaaratay ugu noqoto dheeraatay waa dulqaadka iyo dadku inay wada noolaadaan dadku ka ilbaxsan yahay waa dadka lala noolaado lagu dhax noolaa karo isla markaana lala dhaqmi karo ayuu ku tilmaamay wuxuuna sheegay inay tahay arin aad u xooggan wasoo dalka u dhigay dhinaca kalena aan dib ugu noqono wada hadallada wali ka soconaya dawladda gudaha boqortooyada Sacuudi Arabiya u dhaxeeya madaxweynaha Mareykanka wufuudiisa ayaa sheegay in halkaas ay wali ay ka socdaan arrimo dhowra ayuu sidoo kale la sheegay dabcan ayaa leeyahay in wada hadalladu ay yihiin ku aad u heer sareeya madaxweynaha dalka Mareykanka ayaa la sheegay in loo qabanayo kulamo kala duwan iyadoo dhinaca kalena xaflad ballaaran oo loo sameeyay oo laga dhigay aqalka madaxtooyada laga arkayay iyadoo isugu yimaadeen kumanaan kun oo qof halkaas oo markii loo soo galbinayay fardaha iyo agabka kale ee imkaaniyaadka la arkayay iyadoo ay dad badan ay salaamayaan xogayaha arrimaha maaliyadda ee dalka Mareykanka ayaa dhinaca kale waxa uu sheegay isagoo ka hadlayay shirkadda Saudi US Investment Forum in ay jiri doonto ayuu yiri gabi ahaanba heshiisyo la filayo in dawladaha Sacuudiga iyo dawladda dalka Mareykanku ay isdhaafsadaan cashuur isku dhaafid lama garanayo cashuur isku dhaafistan in ay saameyn doonto labada dhinaciisa noqon doonto isagoo ka hadlayay Scott Payson shirka investmentiga arintan runtii waa arin aad iyo aad muhiim u ah waxaan rabaa inaan isdul taago arintan isdul taago Sacuudiga waxa ka jira Sacuudiga waxay fasaxeen dhawaan in shirkada laga furo dadka Soomaaliyeedna dad aad iyo aad ganacsiga u jecel waliba dadka Mareykanka jooga Sacuudiga aad iyo aad bay isha ugu hayaan waxa markaa jirta Sacuudiga markaa rabtid inaad company ka furato shuruudaha ay soo daabaceen waxa ku jira markaa tahay qof maalgashada ah oo aad doonayso inaad Sacuudiga company ka furato waxa doonto baad wuxuu doonaba ha noqdo companygaas waxa alla wuxuu doonaba ha noqdo ha yaraado ha weynaado dhaxdhaxaad ha noqdo biyo ka shaqee baabuur ka shaqee diyaarad keen ama mukhayad cunto ka furo aday ku taala yani waxa alla waxay doonto waxa jirta standard ay sameeyeen oo runtii sina u fiican sina u adag si uu fiican yahay oo runtii de wadanka inaad maal ka shataa lagu ogolaaday sina uu adag yahay oo lacag cashuura ayaa jirta maalinta aad diiwaan geliso kambaliga maalinta diiwaan geliso Sacuudiga waa inaad horta bixiso lacagta diiwaan gelinta oo dhowr kun oo dollar adigu lacag 13 kun oo riyaal oo u dhiganta ilaa 4-5 kun oo dollar meelahaas taa waxa ka tiran sanadkii waxa laga rabaa lacag 62 kun oo riyaal ba kambaliga laga rabaa وقاب كدوان قاب كمريكان كوكله واي مريكان كسنتكم markuu dhamaado lagu xisaabtamaya Soomaa markaas aad marka kabali leedahay wixii cashuur lagu guriyay laga jari ama waxa laga jarayaa jeegaaga ku soo dhaca ama bilaha laga jaro ama toddobaad laga jaro ama 3 bilood laga jaro laakiin arinta waxa weeye mid sanad la ah Sacuudigu mid kale lama eegayo kabaligan miyuu khasaaray
ما خساري ما شقيي بس ما شقينين شو الان شو لحدين لبدا كون ريال با laga raba arintan marka hadeerto ay waxay yiraahdeen waxa la sameeyaa wax loo yaqaano tax exemptions specifically ama specifically lama cadeen oo ah in la sameeyo cashuur dhaafid لكن لما عدين تفاصيل هوري دبنا كوغا دون ان شاء الله wararkaas laakiin arintaas waa arin xiiso leh hadii tusaale ahaan dadka Mareykanka ee maalgashiga halka ka sameeyo doona loo ogolaado in aan lacagtan laga qaadin runtii waxa fudaanaysa in laga sameeyo company oo marka adoo company-gaaga waxa sameynaysa inta diiwaan galiso baad muddo ku diyaar garoobaysa laakiin hadii qof aan diyaar ahayn company kama furo karo Saudi Arabia faa'iido leeyahay marka waa maxay faa'iido leeyahay waxa weeye marka horeysa waxa lagu siinayaa deganaansho kadibna waxa lagu ogolaanayaa inaad dad keento dadka shaqaalaha dibadda ka keensan karta Soomaaliyeed ka keensan karta meesha doonta ka keensan karta taasna waa arin maartay faa'iidooyinka ka mid ka tahay tusaalahan kabaliga laakiin wuxuu ku fiicay qof diyaar qofkii markuu diyaar garoobo ee kabaliga meesha ka sameeyo ee warintii rakibo ee wixii dhan uu waxeeyo wuxuu keensan karaa cheap labor shaqaale jaban buu dibadda lagu khasbi maayo inuu Sacuudiga uu ka keeno shaqaalaha lagu khasbaayo dadkaas aad keensatayna adiga ayaa ka fiil ka noqonaya oo kabiligaaga ayaa baa wakiil ka noqonaya taasina waxyaalaha ay runtii ay sameeyeen laakiin hadda Mr. President wuxuu leeyahay waxa dhici doona ayuu aqalka Congress-ka ayaa la hormari doona taas oo sheegay inay jiri doonaan dhowr arrimood oo u ogolaanaysa in arrimo dalka Saudi Arabia laga dhaafo oo dhinaca dhaqaalaha sidoo kale ay jiraan in gabi ahaanba ay dawladda Sacuudiga iyo dawladda dalkaas ay noqon doonaan laba dal oo dhinaca heshiiska ganacsi ay yeeshaan ay noqdaan kuwa heer sare heshiiskoodu wuxuu noqon doonaa heshiis ganacsi oo furan oo markaasi free trade ah wali ma usan cadeen wadaadku isla markaana hadalkooban uu meesha ka jeediyay ayuu wuxuu sheegay inay halkaas ka dhici doonaan wacdaro aad u xooggan oo dhinaca ganacsiga laakiin dad badan waxay leeyihiin haddii aysan labada dali arintii Trump uu sheegay dunida dhan uu saaray uusan Sacuudiga ka dhaafin Sacuudiguna dabcan uusan ka dhaafin dadka Mareykanka arimahaas uusan yani arin gaar ah siinin waa jugjug meeshaadii joog ayaa la leeyahay wararka wacala dhinaca darasada hoosana qiimaha leh qodobada kale ee xisaab badan aad iyo aad ka xisaab badan waxa kamid ah Falastiin waxaad ogtiin in dhibaatada aad ugu xoogan ay ka taagan tahay ay kamid tahay dhulka ninkii madaxweyne ku xigeenka ahaa ee dhawaan la doortay oo loogu talagalay Maxamed Cabbaas oo hadeerto xabaal qarkeed oo dabcanaha waa yeelad qofka wadka qofka goortoon dhima kara laakiin da'du waa calaamadaha wadka oo weyn ognahay inaga bal aadankan maanta noolo da'doodu markay gaadho ninka 9 jir weeye hadeerto oo ama caafimaad ahaan ayuusan u gudan karin xilka waxaad ogeeyeen ninkaas inuu yahay nin markii hore sirdoonka Mareykanku Maxamed Cabbaas ay geysteen meesha hadeerto nin kale ayaa meesha la keenay madaxweyne ku xigeenkan waa ninka loo wado markaa inuu noqdo qofka madaxweynaha maamulka Falastiin Hussein al-Sheikh ayaa la yiraahdaa xogayaha guud ee ururka markaas the General Executive Committee of the Palestinian Liberation Organization PLO baa loo yaqaan waa ururka PLO loo yaqaan daanta galbeed Israa'iil dusha ka haysato maamula waxa xiisale marka in uu hadal aan laga filayn uu yiri aduu qof maanta Falastiini ah oo dadkiisa dhibaatada ku dhacday maamsatay inuu ku dhawaaqay in Hamas hubka laga dhigo isla markaana ay noqdaan ayuu dadkooda la noqdo hubka ayaa loo dhiibaya Israa'iil loo dhiibaya hadalkan ayaa dad badan dirbo ka galiiliyoodeen waxayna ku tilmaameen mid kabi ahaanba arxan darro ah sidoo kalena mas'uuliyad darro ah oo dhibaatadiisa wata aanan la arki kareynin oo aad iyo aad u xoogan Pakistan waxay sheegtay in 40 shacab iyo 10 militariya ay ka dhinteen ilaa iyo hadeerta dagaalkii maalmaha badan Sacuudiga waxayna sheegeen in ay taasi aysan ahayn kaliya dhibaatada iyaga soo gaadhay laakiinse ay tahay ay yiraahdeen mid dadkooda dhiig ka qabtay ay u soo argooyeen iyadoo Pakistan sidoo kale ay sheegtay in baabi'inta diyaaradaha dalka Hindiya uu ahaa guul iyo sharaf ay gaadheen ciidanka waddanka Pakistan oo ay ku amaaneen in ay gacmaha ka gooyeen cadow xira oo aad iyo aad u liitay